أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الأحبة قال تعالى في محكم تنزيله يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أيها الأحبة إلهي سبحانه وتعالى وحو كتابك سكت المامية reer nebi aadamow hadduu idin yimaadaan rusul xaggayga ka socota oo idinka mid ah oo idinka warramana aayaadkayga baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala faman ittaqaa wa aslaxa falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun kuwii ilaahay ka cabsada ee qaata waxay rusushu la timi oo wa aslax suubanaado hagaagsanaado acmaashiisa fiicnaysiiya falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun tiiraanyo iyo baqatoona korkooda ma ahaanin baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala insaanka mashkiladaha ugu badan ee dunida ku qabsada waxaa ka mid ah alkhawf waalxusn ilaahayna subxaanahu wa tacaala aayaad 14 gaadhaya buu ku tilmaamayaa waxyaabaha khawfka iyo xusniga bini aadamka ka kaxeeya waxay culimmadu yidhaahdaan isu imaatinka bini aadamka iyo maamuladooda taariikhda bashariga bay yidhahdaan waa macdala waa dhibaatooyinka ugu waaweyn ee taariikhda bini aadamka soo mara fii kulli zamaan wa makaan waqti kasta iyo meel kastaba waayo aadanuhu qumanidu waxay ku jirtaa ilaahay kitaabkiisa markuu ka tago laba mid unbuu maraa bay leeyihin ima طugyaan aw alfawda laa amna walaa istiqraar deganaanshiyo iyo nabadgelya ma dhacda bini aadamku haddii aanu raacin ilaahay kitaabkiisa labada gebi midunbuu ka dhacaa mid ah fawda dadku inaanay yeelanin kala dambayn oo fawda ay noqoto fawdaduna dil iyo dhac iyo boob ayay sababtaa aw iطugyaan ama dictatorship oo isna dhanka kale ah kuwo kibray oo qooqay inay dadka maamulaan oo dabeetana dadku uu xorriyadooda iyo karaamadooda iyo dadnimadooda waayo oo iyana baqa iyo cabsi kale ku abuurta waxay culimmadu yidhahdaan labada dhanba
hadday fawdo tahayna waa baqa iyo cabsiya cadamu listiqraar degnaanshiye la-aan hadday dictatorshipka iyo tuqyaanka noqotona iyaduna waa cabsi iyo deganaanshiye la-aan idan bulsho ama ummadi waxay heshaa alamni الnafsi waاlijtimaaci naf ahaan iyo bulsho ahaanba waxay nabad noqotaa wuxuu qofkiisu nabadda dareemaa qof waliba marka uu raaco ilaahay subxaanaه wa tacaala ariiqiisaasi deganaanshiyaha iyo nabaddu waxay culimmadu ku tilmaamaan inuu yahay sulamu الtaqadumi wاlxadaara horumarka bini aadamka iyo xadaaradiisa sallaanka loo fuulo inuu yahay alidiraab wاlkhawfna dadkoo degi waayo xasilooni la waayo nabad iyo amni la waayaana waa طariiqu takhalluf waa jidka dib u dhaca ee noolaha uu maro ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoogu tilmaamayaa ugu horeyn nabad iyo amniga in ilaahay kitaabkiisa laga helo faman ittaqaa waaslax falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun faman tabica hudaaya falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun ina aladiina qaluu rabbuna allahu huma istaqaamuu falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun alaa ina awliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun xawaalay 14 aaya baa ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa haddii kitaabkiisa lagu qumanaado haddii diintiisa la raaco haddii rusushiisa la rumeeyo haddii jidka ilaahay uu dadka u soo dejiyay la raaco haddii hanuunka aniga iga yimi aad raacdaan baa ilaahay leeyahy falaa khawfun calaykum walaa antum taxzanuun weeyaan baqa korkiina ahaan maayo murugana korkiina ahaan mayso bale ilaahay subxaanaه wa tacaala nabadiyo amnigu si ay aadanaha faa'iido ugu leeyiin jannadiisa markuu ka warramayo wuxuu ku tilmaamay inay tahay daarta nabadgelyada oo aafaadka dunida ka dhaco dhan in lagaga nabadgelayo lahum daaru الsalaami cinda rabbihim baa ilaahay ku tilmaamaya daar nabadeed bay alle agtiisa ku leeyihin ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa wuxuu dadka ugu yeedhayaa inay daartaa nabadeed tahay wallahu yadcuu ilaa daari الsalaami wayahdi man yashaau ilaa siraaطi mustaqiim bale ilaahay islaamnimadaba wuxuu ku tilmaamay waddada nabadda inay tahay saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahay qad jaa'akum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin yahdi bihi allahu man ittabaca ridwaanahu subula asalaam jidka nabaddaa ilaahay ku hanuuniya ciddii raacda kitaabkiisa wayukhrijuhum min adulumaati ila annuuri biidnihi wayahdihim ila siraatin mustaqiim amnigu ayuha alaxiba waa nicma kow waxaa lagu helaa ilaahay kitaabkiisoo la raaco hadday dadku diinta alle si qumman u raacaan kow waxay helaan iطmi'naan qalbiya amni nafsiya naf ahaan bay u degaan naftoodaa xasisha warwaryo tiiraan iyo muruga kuma dhacdo meeshuu u socdaa buu garanaya xagga rabbi inuu ku socdo xaggu ka yimuu og yahay meesha dunidu ku dambaynaysuu garanayaa ilaahay in layswada hortaagayuu garanaya saa ogeed baa ilaahay wuxuu leeyahy وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين إلهي وحينات المامية ألا وحيدين يبوهي كوا إيمان لقها ليدين كمدة الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات إيمان يعمل صالحة عدي لقها له إلهي وحوب بلن قاضي ليستخلفنهم في الأرض dhulkaa ilaahay khilaafadii saydiin dhiibaya dhulkuu idin dhaxal siin sidii kuwii idinka idinka horreeyayba loo dhaxal siiyey walayumakkinanna lahum diinahum alladii irtadaa lahum diintooda baa ilaahay subxaanaه wa tacaala makansiin doona oo taquwada leh koraysan noqon doonta walayubadilannahum min bacdi khawfihim amna baqahooda dabadeedna ilaahay subxaanaه wa tacaala nabad buu ugu bedeli doonaa shardigu waa yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay-a waa adduunka marka la joogo ilaahay wuxuu leeyahy nabadda adduun baan idinku siinaya aayaadkani waxay ka warramayaan adduunyo aakhirana wahum min fazacin yowmaidin aaminuun baa ilaahay leeyahy aakhirana way badbaadayaan oo fasac iyo dhibta ka jirta labada goorba badbaaday leeyihin baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala nabaddu iyo deganaanshiyaha siyaasadeed waa gaaya
وإسلامك اعتباريا لذاته إنه غايات كلا الرادعين يكمدي هاي سيدا وجد بقرآن كآيات بدن وحي كت الماميان قفكو إنه النبض دين تيسوه له إنه النبض هلا نفتيسه إنه النبض هلا مال كيسه إنه النبض هلا عرض جيسية نسل جيسية شرفت ديس الضرورات الخمسة ضي علماء كور رمان ومسألة إنه قفكو النبض انتاسي يردنوه هلكره سو رب سبحانه وتعالى كالي وعابده وحانا إلهي القرآن كآيات بدن كت المامية وها الشرائع دلو سودة شيبا إن يتحي نبضا إن لهله نبضا إن لهله أي إلهي سبحانه وتعالى شرعي وسودة شي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وحت المامية أدون كينا وحببك كام مغنين هذا تصدح شيء سلهشه وحادنه الرادية أدونك وصدح ذنب النبي كت المامية من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها نبي حلي عليه الصلاة والسلام نك وابرسته إسقى معافا آمنا في سربه كوحدي سامه الكيسامة بلشدي سكون نبض قبا وأنا عندنا كبغينين نبض قبا معافا في جسده جدهان وعافمات قبا عنده قوت يومي ما انتاوح عننا هيسته نك صدح داسي سوق كلانتو إنه تلكي يدت كيس اللي تشوقه كنا بتغبه وأنا قحنتين بيل درنكو أهين أما كيس كنا بدواين يا وكنا بتغبه دت كيس يسقى اللي تشوقه آمن في سربي وحكلوا له يري تشركي سنا وعافمات قبه وأمراض يوحسيانا يهينين وحكلوا النبي وقلت الماما ما انت وحنا هيسته أدونك وين لعنون كما بطه صدق هذا الشيء كما بطه أدونك واحد بني آدم كرادية سو قد من النبي وقلت الماما يا كاسي الدنيا ذا قصة أو ررتي الدون دمانتي بكاوها يا أبو النبي قلت الماما يا إلهي سبحانه وتعالى مركو قلت شيئا يا قريش إلهي وحلي فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ها عابدان ربي بيت الحرام كله إيه قاتشنا كقوديي بقنا كنبت قليي هدبا أيها الأحبة أمني قاسي قرآنك وكور رمي نبت قليا داسي أسباب إيا مقومات بيلين هدو ضد كل ما دنا وصقميه وشريه هدو ضد كل ما وينان لهليني labada fawdo mid uu dhacayo ima inuu fawdada dictatorka u dhaco oo cid ku amarku taaglayso tunta sida caalamul islaami uu badan yahay ama inuu xagga fawdada u dhaco sida qaybo badan oo caalamul islaami ay ka tirsanayeen waa labada taraf oo labaduba cadamul amniya labaduba khawf iyo cadam istiqraar yaalo nabad iyo deganaanshiya labadaba aanu midna oolin سأوجد بقى إلهي وحط المامية كو واحد دقناشية كان والإيمان بالله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إلهي وحكت المام يكون النبض هيسته النفتو دا آني ورور دينات قبن هانون سنة جتك صحن قاضي وكو إلهي الربي سبحانه وتعالى جتكيس هيا هذا إنه إسلام نمدين ندبو قاضنه وحين هلينا أمن نفسية نفهانين إنه حصلونانو وحين هلينا أمن الصحية قضائية نقال هانين ندقنانو حصلانو وحين هلينا أمن أخلاقية وحين هلينا أمن فكرية وحين هلينا بناء آدم كون نبض ووبا هي دمان تيدو مالك استبقشا عرضكاقية مالكاقية نفتادية دينكاقو بوا نبد قليان أما هدينو جدك لك وعنو وقادي وينو لبدا الطرف كلاميدو بينو كدعينا أما طرف كاف فوضى إنه تاجنانينا أما طرف كاسي
dictator ka baynu taagnaanaynaa labadanna bini aadamku inta badan wuu kala tallaabaa mar hadduu xaqa garan waayo ama fawdu ku dhacayo wuu dawakhaa markuu hadhow wareerana wuxuu aqbalaa mid dictator inuu qabsado wuxuu idhaha wartan wax waliba waa dhaamaanay aan marun ka baxno ka kale markuu qabsada nafta isugu keenana waxay idhahdaan kan wax waliba waa dhaamaanay aan ku boobno marka labada dhan mid unbuu taagan yahay se labadaba waxaa lagaga badbaadaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala tiisa la raaco saa ogeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina farayaa inaynu ilaahay diintiisa qaadanno kow oo iimaan laynaga hela iimaankaa asal u ah nabadee laba inaynu yeello alamru bilmacruufi wannahyi cani lmunkar xumahana iska reebno xuma iska reebku waxa weeyaan wixii masaalixa ummaddu aanay ku jirin adduunya aakhiro toona in dadka laga celiyo wixii dadka adduunkoodii iyo aakhiradooduba ay ugu jirtana in dadka la faro saa awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiidka saxiixa ku tilmaamayaa intuu seexdo kacay buu wuxuu nebigu leeyahay laa ilaaha ila allah weylun lilcarab min sharin qad ikhtarab carab halaag baa u sugnaaday balaayaa soo dhowaatay buu nebigu tilmaamay yaajuuj iyo wamaajuuj baa meeshoodii wax laga dumiyey markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam in mashaakil iman iyo fitan iyo imtixaan buu tilmaamay haweenkii nebiga mid ka mid ah waxay ku tidhi afa nuhlaku wa fiina saalixuun oo miyaana la halaagayaa miyaanu halaagsamaynaa iyadoo dadka saalixiintii ay nagu jiraan dad wanaagsan iyadoo joogaan miyaan halaagsamaynaa qaala nacam idaa kahura alkhabath buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam haa hadday inta xumi badato hadday bulshadu inta xun qaban weydo oo sii dayso dabcan waa halaagsamaysaan baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala nebiguna calayhi salaatu wasalaam kaas buu adkaynaya maanta waxaa badan kahra alghawaa'iyiina waalmughafiliin dadka xumaha ugu yeedhaya dadka xumaha ugu yeedhaya mushkiladda waxaad ka eegtaayoo keliya social mediahan bini aadamku ay dhegaystaan ama dadku dhegaysto social media waxa laga soo afuufayo bale soomaalidu waa dad dhibtooda ay ka gedisantay dadka kale social media haddaad eegto dadka ugu badan ee la dhegaystaa waa intan waalan uma dadkeeda waala dhegaysataa ma jirto ha soomaali ahayni dad waalan oo lagu odhanayo wuu waalan yahay ayaa haddana wuxuu yahay dadka loogu dhegaysi badan yahe la dhegaysanayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa amni haddaynu rabno inaynu ilaahay raacno kow inaynu caqiido saliima qabsanno xejisanno laba inaynu alamru bilmacruufi wanahyu cani lmunkar samayno saddex inaynu nimcadaynu haysanno markaasi ku shukri noqno waid taadana rabbukum lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabii lashadiid وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله إلهي وحو تصالي إنوغو تلمامي مقالا نبد قبتي ودقني وأرزاق ديدو مالك استوغي منيسي لكن إلهي نمعدي سكو كفر دي فأذاق الله لباس الجوع والخوف وإلهي سبحانه وتعالى ددن سيي huga cabsida iyo gaajada hugooda rabbi dhadhansiiyey walaqad jaaءahum rasuulu minhum fakadabuuhu faakhadahum اlcadaabu wahum ظaalimuun ayuha alaxiba waxaa ka mid ah waxyaabo badan oo sharcigu inoo tilmaamay oo haddaynu ilaahay diintiisaasi si dhaba u qaadanno oo waxay sheegaysa yeello waa sida qura aynu nabad ku heli karno baryo galbeetoona nabad ma soo wadaan jaar iyo kuwa kaa fogitoona kuuma soo wadaan dunida ayna soo gaadhiyo duni ku soo gaadhayso adiga ku danaynaysaa ma jiro adna ma tihid ilmo caruura oo wasiyo u baahan iyo cid gacanta qabata caruurtaa la yidhaahdaa caqligooda kuma fille sharcigu wuxuu yidhi cidi ha ka mas-uul noqoto ma caruur baynuna cidi ka mas-uul tahay markaa oo umamka caalamka iyo dunidaynu u yeedhaynaa haddaynan qaan gaadhaynin waa lagu gumaysanayaa lagaa mas-uul noqon maayo ilaahay ha loo toobad keeno oo dembi dhaaf ha la weydiisto
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين قال تعالى في محكم تنزيله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا أيها الأحبة waxyaabaha ilaahay qur-aankiisa uu ku tilmaamayo ee degenaanshiyuhu ku yimaado waxaa ka mid ah istiqraarka siyaasiga ah ummadi inay kala dambayso yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicu rasuula wa uli lamri minkum war inta iimaanka laga helayow alle iyo rasuulkiiba ateeca inta talada idin haysana ateeca bini aadamka tale looma dhiibo haddii aanu taaco yeelanaynin maamul aan taaco lahaynina dunida kama jiro dowladaha reer galbeed waxyaabahay ku guulaysteen waxaa ka mid a waxay aqbaleen maamul kastoo ay samaystaan inay taaco ula yimaadaan hadduu yahay ku dowladeed hadduu yahay ku shirkadeed hadduu yahay ku ka hooseeya hal meela unbay gafeen oo maamulkeeda u diideen inuu madax yeesho meeshaasna way ka burbureen galbeedka meesha qura aan maamul lahayn waa guriga islaanta iyo odaygu waa sibayin midna ka kale ma maamulo guriguna wuu baaba'ay waayo maamul baanu lahayn kala dambayn ma leh nolosha inta kale way garteen inay kala dambayn u yeelaan taasee uma yeelin ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa nolosha oo dham inay kala dambayn yeelato hadday madaxdu qaldanto ama waddada la hayaa aanay sax noqonin ilaahay wuxuu leeyay fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi waalrasuul war haddaad murantaan oo wax isku qabataanna isdila lama odhanin ee ilaahay iyo rasuulkiisu waxay idin sheegayaan usoo noqdaa la yidhi kaasi ha noqdo waxa idinkala saara haddaa alle iyo rasuul rumaysantihin idan wuxuu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam axaadiis tiro badan in waliyulamrigu ama cidda wax maamushaa inay taaco leedahay waxaa kaloo uu tilmaamayaa ammaana inay taho isna uu ka soo baxo waxaa kaloo nabigu tilmaamayaa cid aan ammaanadaa qaadi karinna inaan loo dhiibin soomaalidu waxay caan ku tahay kay adhiga kala quusataabay geela u dirataa bay idhaahdaan reerku kuu ka quustaabaa xagga maamulka loo diraa waxaana la doonayaa in la guulaysto midaanadaadba waxaaga u dhiibteen baad leedahay waxa ummadda ha loo dhiibo caaqilka iyo suldaanka iyo odaygu kuwaanu isagu xoolihiisa gaarkaa ku aamineen uu yidhaaho ummadda ilaahay waxay leedao dhan ha lagu aamino waa dulmi kale suurtagalna maaha inay dhacdo bal isagoo daacada oo cibaado badan ayuu hadduu karti daran yahay aan loo dhiibayn ama haddaanu maamulka aqoon nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii rag ka mid ah oo uu ku tilmaamayay inuu ninka ugu hadal cad uu yahay abidar ayuu nabigu ku yidhi adigu daciif baa tahay iska daa maamulka laa ta'muranna cala اثnayn laba ha u talinin buu nabigu yidhi mid ka badan daaye laba qof idan haddii la waayo ummaddu cidday dooranaysa hadday noqon weydo ciddii ku qumanayd iyana waa cadamu listiqraar deganaanshiyaha waa la waayaya waxaa kaloo deganaanshiyaha la waayayaa cidda maamulka haysa hadday cadaaladda ka tagto xukunka cadaaladiisa dhaqaalaha cadaaladiisa alcadaala fi tawsiic ummadda inay si siman wax u siiso haddii maalin baynu idhaahno waa maalintayadii oo la yidhaha maalinba reer ha boobo dabeetana reerkaasi gar iyo gardarraba uu difaaca ugu jiro ninkaasi inuu meesha fadhiyo waayo waa xilladoodii mar bay rabaan iyaguna inay meesha boobaan hadday taa tahayna guulaysan mayno istiqraarna jiri maayo laakiin wuxuu istiqraar jirayaa in allaha yaamuru bilcadli walixsaani waitaa'i di lqurba wayanhaa can alfaxshaa'i walmunkari walbagyi yacidukum lacalakum tadakaruun
waxa ilaahay nagu waaninaya haddaynu aqballo. akhiiran waxaan ku gebagabaynayaa muqawamaadka waaweyn waxaa ka mid ah inta wax qorta ee iclaamka ku jirtaana inay ilaahay ka baqato. iclaamku waa waxyaabaa ummadaha roga, beentan badan ee la faafinayo, warkan aan la hubin ee la akhrinayo, waa waxa dadka dabagediya. iclaamka hal tusaalaan kaasi wuxuu samayn karo. nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wa amiinu man fi الsamaawaati wa fi اlardiya الصaadiq الamiin gaalnimadii ama martaan diintu ku soo degin lagu yaqaanay inuu الصaadiq الamiin yahay qabla اlbicثa iyo intii waxyigu ku soo degay baa caan ku ahaa. ayaa qurayshi waxay ku tashatay inay war ka faafiyaan. warkay ka faafinayeen waa maxay? waa inuu nin waalan yahay. dadka kii u caqli badnaa ee ilaahayba doortay ee bashar oo dhan inta rabbi eegay allahu aclamu xaysu yajcalu risaalata uu dad oo dhan ka doortay ee haddana tahire qalbigiisa jeexaya nadiifiyey ee haddana waxyi ku soo dejiyey ee jidka quman ilaahay u tilmaamay ku tilmaamay basharka ka u khayr badan inuu yahay ayaa miidiyuhu wuxuu go'aansaday in dadka loo sheego inuu waalan yahay. dabeetana dacaayaddaasay faafiyeen. saxaabi damaam la yidhaahdaa wuxuu leeyahay magaaladan soo galay dabeetana sidii warka laygu waday hareeraha dadka magaalada maka kaga imanayaan baa loo sheegaa nin waalan baa magaalada jooga oo dadka sixre ah iyo ku dawakina iska ilaali haddaad u tagto annagaa tolkiga oge. magaaladan soo galay buu say warkii igu wadeen ayaan sidhi buu markii dambe sidhi buu war malaa ninkani wuu xanuunsanayaaye bal ma isku daydaa inaad dawayso. nabi maxamed buu yimi wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ilaahay rasuulkiisii ayuu wuxuu ku leeyahay war waxoogaa baan dadka ku tufaa madaxa looga jire ma kugu tufaa waxoogaa. yani wuxuu rumaysan yahay inuu waalan yahay oo u baahan yahay in wax lagu tufo. dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam markaas buu la hadlay. markaa kadib buu ogaaday de inaanu ninkaa waxaan ku hadlayaa nin waalanahayn oo u islaamay. waxaan uga dan leeyahay haddii nebi maxamed loo inta dad u shiro la odhan karo wuu waalayo dad laga dhaadhicin karo inteena kalena inaynu waalanay waa laynaga dhaadhicin karaa. iclaamku markaa imaa inuu mufsid yahay oo dadka fasahaadiyo iyo inuu khayr ka shaqaynayo oo alamru bilmacruufi wanahyi can ilmunkar uu khayr sheegayo. waxa aan soo sheegay oo dhan iyo kuwo kaleba qur-aanku in badan buu ka warramaya wuxuu ku tilmaamayaa inay yihiin muqawamaat اlamn wاlistiqraar waxyaabaha keensada in nabad iyo deganaashiya la helo. haddaynu muqawamaadka diidnana inaynu ilaahay kitaabkiisa raacno isku xukunno nabad heli mayno. waxaynu helaynaa waa labada dhan un inaynu kala dooranno kolba kaynu ku dhacayno. labada dhan un inaynu kala dooranno saacadna inaynu fawdada joogno iyo isdilka iyo boobka iyo dhaca saacadna inaynu joogno maxay mid dictator ah oo markaa dadka tumo oo dhib u geysta. labadaa daraf un baynu abi taagnaanaynaa. doorashadeennuna labadaas un bay joogtaa. waxaa qudhay aynu qumanaan karnaa haddaynu aqballo ilaahay kitaabkiisa inaynu raacno. haddaynu taa aqballo dad badan oo dadkeenna ka mid a aaminsan haddaynu kitaabka raacno waa lumaynaa. haddaynu kitaabka raacno gaalada ayna maagaysaa. armaaba la guulaysan waayaa shakaa ku jira dee kitaab waraar maynu guulaysan weynaa. idan markaa hadday taasi timaadana dee iimaankeenna dib loogu noqonayaa. mar caqiidadeennu sax ma tahay iyo waxaynu rumaysannahay taas baa imanaysa. haddaynu wixii alla inoo soo dejiyey wa huwa alkhabiiru alcaliim axkamu alxaakimiina oo aan suu aqoontiisa wax la mida ilaahay aanu jirin, khibraddiisa wax la mida aanay jirin, naxariistiisa wax la mida aanay jirin, xikmaddiisa wax la mida aanay jirin. haddaynu isaga ku kalsoonaan weyno ma waxaynu ku kalsoonaanaynaa afar qof oo intaynu meel u saarra aynu idhaahno waa khubaradii galbeedka ka timi oo waxbay inoo qorayaan iyagaa in hanuuninaya. bini aadamka u fiirso. rabu الsamaawaat ayaa waxaad ka dooranaysaa guddi bini aadama meel la fadhiisiyo la yidhi wax qora mahmaa kaanuu. wadaad iyo wamin waxay doonaan ha noqdaan, oday iyo suldaan iyo kuu doonaya ha noqdo. war ma bini aadam baad ilaahay dhinac dhigaysa aad ka shakisan tahay ka bini aadamku inuu ka fiican yahay ka rabbiga.
ربنا وحكولي ور كتابا كوسود الراع رسول هدي دين تماده وآيات كيغا ايدين شيغان فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وأقم الصلاة